rabaa gabdhaha inaan soo dhaweeyo si ay khudbooyinkooda munaasabaddan ku aadan ay u soo jeediyaan waxaan rabaa inaan u yeero Hodan Axmed Gardan oo runtii mid ka mid ah labada musharax si ay codkeeda idinku weydiisato isla mar ahaantaasna ay idinku cadayso mowqifkeeda waxqabad iyo sida ay doonayso inay ku maamusho jaaliyadda qurba joogta Puntland ee qaaradda Australia. Hodan adoo mahadsan soo dhawow. سيتي دباتي بالفعية هاي ما شاء الله ما شاء الله waxaan halkaan ka salaamayaa dhammaan mudanayaasha iyo marwooyinka sharafta leh iyo waliba dhalinyaradeena ka soo qayb gashay madasha doorashada maanta anigoo ku hadlaya afka jaaliyadda reer Puntland waxaan u mahad celinayaa gudoomiyaha jaaliyadeena Puntland Diaspora Forum mudane Muqtaar Kilwe oo ahaa run ahaantii noo soo qabtay shaqo aad u wanaagsan dadkiisana muujiyay garab istaag nana tusay how to be a true leader intuu xilka noo hayay waxaan kaloo halkaan uga mahad celinayaa dhammaan dadkii soo qaban qaabiyay kulankan kana geystay gacan xoog leh doorashadan inay inoo hirgasho horta waxay ku dhacday kulanka Ilaahay waxaan waani wada dhamaantiin waa inii mahad celinayaa sidoo kale waxaan u mahad celinayaa familygayga iyo the wider Puntland community oo ii muujiyay garab istaag ina tusay baahida iyo xiisaha loo qabo inay dhalinyaradu maanta wax qabato doorashadan inoo hirgasho maanta waxay soo martay wajiyo aad u badan waxayna ku dhacday fadliga Ilaahay doorashadan qaban qaabadeedu waxay soo martay fadhiyo aad u badan wada tashi badan iyo waliba tanaasul aad u badan taasoo looga dan lahaa in dadka la isku hayo at all cost oo aan dadka la kala daadinin waxaan u hambaleynayaa dadkeena sharafta leh gaar ahaan dhalinyaradeena mar walba garab istaaga muujinaysay dhageysanaysana cuqaasheena iyo dadkeena sharafta leh go'aamada ay soo jeedinayeen magacaygu waa musharax Hodan Axmed Gardan waxaan ahay gabar reer Puntland kuna kortay wadankan Australia gaar ahaan magaalada Melbourne waxna ku baratay kana gaartay heer sare waxa inta ay dheer inaan ahay hooyo Soomaaliyeed oo korinaysa dhalinta yar hadda soo kacaysa dareemi kartana dhibaatooyinka ka jira community-geena siiba dhalinyaradeena background education kaygu wuxuu yahay oral health iyo mental health halkaas oo aan ka shaqeynahay waqti dheer kana ahaa active community member waxa inta ay dheer inaan ahay oo ku jiray xubin muhiim aan ahaa oo ku jirtay aasaasiyaashii hore ee dhalinyarada Puntland Youth Organization waxaan maanta isku soo sharaxay oo halkaan u soo istaagay inaan codkeena helo oo aan ugu deeqo intii karaankayga iyo tabarteeda iyo kartidayda ah inaan dhalinyaradeena iyo dadkana dhibaataysan dal iyo dibadba aan wax ugu taro kuwaas oo ina ka sugahaya garab istaag daryeel waxaa halkaan maanta u taaganahay inaan dadkeena advocate u noqdo oo waxyaalaha community-geena ay u baahan yihiin aan dawladda uga soo qaado annaga ku garab istaago hooyooyinka ciyaalada kulli dadka garab istaaga u baahan insha Allah waxaan naftayda iyo musharaxadayda walaashay Ridwaan amba u rajaynayaa labadeenaba guul insha Allah waan ku mahadsantihiin sida ii dhageysateen codkeena qaaligaana ii siiseen assalaamu calaykum Hodan aad iyo aad bay mahadsan tahay waxaan filayaa codkeedii iyo ajendaha ay idinka doonaysay in aad ku doorataan inay idin cadaysay